بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى مقالكنا ما waxaan ku arki doonaa runtii sida title-ka maqaalka ku soo aragteen yani habkan WhatsApp ku adeegsan karno bilaa internet markaan leenahay bilaa internet yani waxa laga yaabaa inaad u qaadato internet la'aan inaan WhatsApp adeegsano runtii taas ma aha runtii dad maqaalka u arkaysan bilaa internet adeegsanayso oo aan doonayn inaad yani inagu maqaalka waxaan ku arki doonaa sideen WhatsApp u adeegsan karno inagoo offline micnaha yani waxa laga yaabaa marka qof doonayo WhatsApp kala soo xiriiro in xag sare ka arkaan waqtigii u dambeysay WhatsApp ka isticmaalaysay isla markaana ay ogaadaan haddaad fariimo soo dirtay inaad fariimahoodii eegtay inaad online to aanad keer garanayn oo aanad soo jawaabayn wax la mid ah in wax jira feature WhatsApp leeyahay oo ah inaad iska xidhi karto featurekaas isla markaana marka fariimaha lagu soo diro xitaa haddii aad akhrido aan yani dadku ogaan karin laakiin taasna waxay leedahay faa'iido darro ah in yani adigana sidaas la mid ah dadku hadday fariimahaaga inta eegaan aanay ku jawaabin isla markaana masajadaada arkaan oo ayna keer ku sina madanayn yani inaan ogaan karin markii uu horeysay featureka ay WhatsApp soo saartay waxay u soo saartay qaabka ah in yani adigu aad iska xidhi karto laakiin dad kale hadday fariimahaaga arkaan aad ogaan karto haddana markii dambe shirkadda WhatsApp bedeshay isla markaana u bedeshay in labada dhinacba ay saameyso oo ah haddaad iska xidho fariimaha dad kale yani inaad markaad akhrido ay ogaadaan inaad yani fariimahoodii eegtay oo akhriday isla markaana aanad jawaabin adigana si lamid ah waa yani way kugu dhacayso oo dad kale hadday fariimahaaga akhriyaan ma ogaanayso sidoo kale waxaa faa'iido lahayn ba waxay tahay haddaad qariso inaad last sin waqtiga u dambeysay WhatsApp isticmaalaysay dadku yani way ogaanayaan inaad feature ka qarisay haddaba muuqaalka waxaan ku arki doonaa gebi ahaanba WhatsApp adigoo isticmaalaya haddana dadka eegaya fariimahaaga inuu yidhaahdo waqtigii ugu dambeysay qofkan ma fadhiyo WhatsApp mana isticmaalayo last sin yani waqtigii ugu dambeysay WhatsApp ka isticmaalaysayna way arki karayaan waqtiga dambeysay WhatsApp isticmaashana way arki karayaan haddana yani taasoo keenaysa inay ku qancaan gebi ahaanba inaad hadda offline tahay balse laakiin aad WhatsApp oo isticmaalaysaa sidoo kale fariimaha inaad furtayna ma ogaan karayaan application-kan oo adeegsanayna waxa loo yaqaanaa direct chat waa application WhatsApp ah isla markaana database-ka WhatsApp ku xidhmaya kaana caawinaya gebi ahaanba inaad WhatsApp adeegsato adigoo aan haddana xagga WhatsApp marka laga offline oo aan wax internet isticmaalayn haddaba application-ku aad buu xiiso badan yahay sida magaciisa ka muuqdana direct chat baa la yidhaahdaa oo ah si saxabad qofkii oo la xiriiraysaa yani internetka waad isticmaalaysaa marka runtii application waa qalkii noo saaran intaynaan applicationka iyo habka inuu adeegsan doono iyo waxyaalaha inuu application ku baran doonoba inaynu gudbin kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta application waa halkii noo saaran application link aad ka download garay lahayd sida inuu caadi xagga description ka yaala application sidan ayuu soo baxaya halkan waa interface application marka naga step aad oranaysaa waa halkan waa sharaxaad bay ka siinayaan laakiin muhiim ma aha waad akhri kartaa waana iska din kartaa maadaama inuu muuqaalka ku arki doono si inuu adeegsanayno application-ka then saxbeen oranna halkan marka nimaadna application-ka saaragtan waxaan oranaynaa test chat head halkan aan ku dhufanaynaa okay saaragtan halkan message cusub baa inoo soo baxay test chat head marka message cusub baa inoo soo baxay saarka saxuna leeyahay Google community to get access to beta updates waxyaalaha information way ku sheegayaan marka haddaan imika qaybtan iska xidhno applications kan tagno saarkan wuxuu leeyahay application-nada uu adeegsado messenger baa kamid ah marka hal WhatsApp kaliya kuma samayn karno messenger baan ku samayn karnaa waxaa jira message internet ah oo runtii telefoonadu ayna wada support gareyn hadda ka hor baan mar isku daynay inaan muuqaalkeedu kula wadaagno laakiin waynu horgal weydeen insha Allah mustaqbalkan dhowna waa idin soo gudbin doonaa iyo WhatsApp marka application fara badan Telegram hadda adeegsanayso iyo waxyaalo fara badan oo kamid ah halkan aad kaga soo daraysaa application-nada ah instant messages aad halkan kaga soo gelinaysaa marka runtii inagu muuqaalka hadda ka hor sheegnay WhatsApp aynu adeegsanaynaa laakiin dhammaan application fara badan baad ku adeegsan kartaa waana ku soo dari kartaa application-ku waxay isticmaaluu leeyahay oo ah waxyaalaha ugu fara badan iyaga faa'iidada u sameynaya adiga runtii application-ku hadii aynu nagu si free adeegsanayno iyagu yani waxay lacagta ka sameynayaan baa ah yani inay inoo soo daayaan xaysiimaha marka runtii test chat head hadaan hadna ku noqono marka haddaad ku dhufato test chat head imika dalkan kor ku dhufto saaragtan application-ku wuxuu noo sameynayaa bahalkan saaragtan calaamadda messenger-ka oo kale messenger-ka ayaa adeegsaday sida caadada icon keera noocaasa isla markaana application-nada dushooda soo fuula marka runtii imika waa test halkan aragtan English bas kaga qorqoran number of times baan ku eegay laakiin haddaba seebada application-ka waa adeegsanaysaa application-ka waxaad u adeegsanaysaa ugu horeyn waxaad tagaysaa applications-ka section-kan aynu hadda ku jirnay baad tagaysaa
kadib waxaad soo dooranaysaa WhatsApp iyo application-ka aad u baahantay. Marka anigu muuqaalka waxaan ku eegina wax xusuusnaa in WhatsApp aad dooranaysaa. Haddaba halkan muhiimaddu waxay leedahay waxa weeye halkan oo kale auto mark as read pro, yacni ka dhig yacni message-yada cusub ee soo gelaya inaad akhriday yacni markay ku soo gaadhaan. Marka application-ku wuxuu leeyahay qayb iiba iyo qayb free ah. marka runta haddaad tahay professional iibsanaya ama aad iibsatay ama qof iibka isticmaalayso wax xusuus mudan applicationada iibka hore waxaan kanaalka ugu soo bandhignay iyagoo bilaash sida loo helo. marka runta waxa jiray store aynu ka helaynay oo muuqaal kanaalka aynu ilaa 4 muuqaal wax gaadhay ku eegnay kanaalka ay ku jiraan. runtii isku dayna iibsato lacagtaada save garay raadso applicationada kanaalada iiba store-rada aynu hore ugu soo kanaalka kanaalka qaar ka mid ah muuqaalada xagga description-ka ayaan idin dhigay sida loo helo applicationada iibka iyagoo bilaash. marka runtii haddaad tahay qof yani professional isticmaalay ama iibso ama halkaaba kala soo deg waad saxaysaa halkan oo kale waxaad ka bedelaysaa deemka iyo applicationku sidoo uu muuqanayo. marka halkan dhowr deem baa kalladhadoodii halkan ka artaan adiga tijaabin nooca doonaysa dooranaya. laakiin waxa xusuusta mid waxa weeye haddaba applicationka sidee buu xogtaada u ilaalinaya wuxuu ilaalinayaa saddexdan section baa inoo muhiim saddexdan ayaa ugu muhiimsan applicationka. isla markaana application kasta oo isticmaalayso aad eegaysaa haddaad WhatsApp ku tijaabinayso haddaad Messenger ku tijaabinayso haddaad ku tijaabinayso Telegram iyo applicationada kale ee instant messageska. marka halka waxaad gelinaysaa filter chats containing a keyword shande messageda ka imaanaya dadkan sita magacyada noocan ah. marka halka maxay tahay dadka noocan ah haytuusan xagga soo maxaa qoran don't show chat here is for little containing specific keyword haytuusan dadka magacyadooda keywordada ama مثلا haddaan tusaale inoo sharaxo tusaale soo qaado qof hadii la yiraahdo Axmed Maxamed qof kalena la yiraahdo Maxamed Axmed yani dadka magacyadooda Maxamed ku jiro haytuusan qof alla qofkii magaciisa Maxamed ku jiro ku tusmaayo Axmed Maxamed ku tusmaayo Maxamed aan yiraahdo Maxamed ku tusmaayo yani waxa weeye hadda doonto ka aad doorto xitaa ka Soomaaliya magacyada ka ku jirto haday tahay Kaltoon haday tahay Khalid yani ku tusmaayo. marka waxa weeye waa inaad sidaad u adeegsanayso fiiriso marka hore aad si fiican u eegto waxa weeye keywordada noocan ama magacyada noocan dadka ay magacyadooda ka mid yihiin haytuusan. qaybtan labaad waxa weeye marka runtii application-kan xogtan uu ilaalinaysa hada kooriye sheegay dadka kale ka ilaalinaya inay muuqaaladooduna soo gaadhaan aynu ignore gareynayno. halkan kale waxa weeye filter saartan kan wuxuu leeyahay filter chat starting with keyword don't show chat here is for title starting with dadka magacyadoodu ka bilaabmaan qaab gaar ah مثلا maxamed oo kale ma buu ka bilaabmaa ama ma ayaa Soomaali. marka runtii dad imka geliso ma ayaa magacyada ma ayaa u horeeyaan ku tusmaayo Maxamed Maryan iyo wixii la mid ah. marka waa starting point waa halka u horeysa laakiin marka hore waxa weeye waa hadii meelun kaga jirto hadda imka ka ku darto Khalid Kaltoon يعني كادنا ماشي كجرتو مهمة مسينة الابلكيشن wuxuu eegay in magacaas ku jiro qofkan magaca kuugu qoran. halka wadda meesana waxa weeye waa ugu dambeyn waa magacyada ku dhamaada halka wadda meesana marka aad doonayso da iyo waxaad geliso magacyada ugu dambeeya sida Maxamed Axmed magacyada da u dambeeysa ama d English kuma tusinayo fariimahooda. marka runtii inaad aad u adeegsato ayaa muhiim ah oo aad iska eegto marka dadka magacyadooda aad halkan gelinaysaa magaca WhatsApp-ka kuugu qoran ama Messenger-ka kuugu qoran qofkan qofka dad Messenger adeegsanayna magaca Facebook account-kiisa ugu qoran haddii WhatsApp adeegsanayna lambarkiisa magaca kuugu save garaysan ayaad halkan gelinaysaa. marka runtii application-ku sidaas ayuu shaandheynaya. haddaba maxaa mudan application-ka sameeyaa dadka wala xiriis application as long as fariin soo gaadho isaga ku soo gudbinaya no more important muhiimad kuma leeyahay marka inaad u gudubto aad WhatsApp isticmaasho. haddaba waa application-ka halkan waxa laga yaabaa inaad misunderstand waxyaalo fara badan oo khalifaan ka yimaado. application-ka waxa loo adeegsanaya inaad xogtaada qariso marka waxa muhiim ku yahay waqtiga doonayso inaad dad kamid ah dadka kugu jiro WhatsApp-kaaga aanad yani WhatsApp-kaaga adeegsan laakiin waqtiga caadiga ah WhatsApp-kaaga sida caadiga u adeegsanaysaa qofkii fariin baa u diraysaa fariimaha ku soo gaaraya aad ku ignore garanaysaa application-kan. marka runtii aad buu muhiim u yahay application-kan runtii saad ku leeyahay feature baa jira WhatsApp ay leedahay laakiin hadda feature-kaas adeegsato wuxuu leeyahay dhan kale faa'iido daraa oo adiga laftaada in lagu sameyn karo nooca laakiin application-kan waa adiga kaliya ayaa dadka iska ignore gareynaya runtii dadka aan doonaynay. runtii halkan oo kale waa qaybta questions-ka iyo answers-ka su'aalaha dadka lagu weydiiyo shirkadda aan yiraahdee developers application-kan iskala feedback inaad yani fariin u dirto announcement waxyaalaha ku dhawaaqaan about iyo premium oo ah inaad iibsato. halkan waa setting application ma setting aad tagto ku dhufato halka waxyaalo fara badan baad ka arkaysaa clear notifications
xagga sare ka clear garee marka runtii inaad kuwan idinku waqti kulmisaan baan jeclaan lahaa halkan oo kale wuxuu leeyahay saaragtaan xagga sare notificationska soo gaadha masax oo qari halkan oo kale waa iyagana remove garee kuwa aan notificationska aanan akhriyin batch yani clear garee marka runtii inaad idinku halkan oo kale kuna aad waqti ku silmisaa ma jeclaan lahaa anigu waxaan doonayaa inaan muuqaalku nagu dheeraan taas awgeed ayaan uga gaabsanayaa fadlan haddaad muuqaalka shinoole gare haddaad kalan ku cusubtayna inoo subscribe gare haddaad muuqaalka ka heshaysa hadda kor sheegana inoole gare runtii inaad inoole garaysaa muuqaalka waxyaalaha ugu fudud aad noo qaban karto annagana naga caawinaysa youtube algorithm muuqaalka dad badan tusto taasoo keenaysa kanalkeena dad badan kusoo xidhmaan sidoo kale waxay naga caawinaysaa inaan ogaano inaad yani contentigayga iyo muuqaaladeeda aad xiisiso taasoo nagu dhiirigelinaysa inaan wax ka badan muuqaalo fara badan aanu halkii maalin soo gelino marka runtii mar labaad waxaan ku leeyahay muuqaalka haddaad ka heshay in la gare haddii jirto cid muuqaalada noocan oo ka hesha oo aad aqoon u leedahayna fadlan la wadaag intayna muuqaalkan ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu